iyagu waxay qorshaysteen Somaliland inay calaaqaad la samaystaan dhaqaale iyo siyaasadeed oo waddanka wax ku yeeshaan annagana in lacagtana la mariyo fikraddii waa abuurantay ficilkiiyaa ku xiga ficilkaasna mar dhow waa la arki doonaa dacartiisa iyo wixiisa oroma lagugu soo yaacinayaa yaacaysa oromana waxaa la yidhi oomaro libaaxay soo wadaa oromana xabashiyay soo wadaa oo waxay ku qabsadeen harar dhulkii Soomaaliya la dhihi jiray 6 qaybood laga dhigay 6 qaybood ayaa laga dhigay hor Allah oo maaragtay koona ay leeyihiin 6 qaybood waxa waa Puntland Galmudug waqooyi Shabeelle koonfur galbeed Jubbaland iyo Banaadir waa 6 lixdaba waxa sameeyay qabqablayaalka dagaalka iyo architecture-ka ah gabar ninkaas sayidisiin lugahana inay kula jiraan Itoobiya madaxana inay badda kula jiraan oo markii la rabo Banaadir intaan ka ahayn dowlad goboleedka xuduudda Itoobiya xuduudu leeyahay lugaha kula jira Itoobiya madaxa kula jir bad meel ay noqotaba marka saasay u dhisan tahay waa daliigtama saasa oo isdhinac yaala baarlamaanka xumaayo madaxda ka ah Sharaf Sakiin Sharaf Xasan Shaqaadan meel yara iyo Cabdullaah Yuusuf iyo Cali Geedigan saddexdaas amxarada keenay inta tagana yiraahdeen maxay sameeyeen baarlamaan aan la fariisin ayay qaraar ka soo saareen Sharaf Xasan kada sheegaysa ayaa soo saaray oo uu leeyahay lama kala soocayo ciidamada ajnabiga lama kala soocayo daris iyo mid shaba kulli waa ogolnaa inay yimaadaan halkaas ka soo galeen yaa waqtay wada Cabdullaah Yuusuf mid kan kale oo Sharaf waaga iyo Ali Maxamed Geedi inta noo yimid anagoo hayno caayr oo yir amxarada ana kaasay Itoobiya ana kaansaday